maanta waxaan oranayaa waxaan noo keena odhan maysaante maanta CT-scan-kii waad iga haysa ilaahay ma haddii weeye haddii adeegyadii aad ugu tegi jirteen meelaha kale gurigiinii laydinku keenaye war aamina oo ka faa'iidaysiga oo caloosha usii daaya farxad bay tahay caawanta in halkan joogo oo ka soo qayb gala kulankan muhiimkaa ee wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag iyo cisbitaalka guud ee caasimadda gobolka Sanaag ee Cerigabo ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay ujeedada socdaalkaygu wuxuu ahaa laba arrimood in mashaariic cisbitaalkan lagu gelinay oo muddo inoo shaqaynaya oo dawada inaga caawinaya shaqaale inaga caawinaya laydhkii biyaha inaga caawinayaan oo keeno oo kormeero muddo 2 bilood socday iyo inaan gobolka ku wareejino mishiinka CT-scan-ka loo yaqaano labada ujeedo bay ahayd socdaalkaygu runtii kelmadun baa halkan iga bannaan oo dee kuma celinaya wixii halkan laga sheegay wasaaraddu waxay qabatay iyo cisbitaalku wuxuu qabtay kelmaddeedu waxa weeye fariin aan u diray bulshada reer Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Cerigabo waxaan leeyahay ilaa maalintii aan imid halkan muddadaanu joognay mar kastoo aan imaadno baahi baa laga hadlayay baahi ma dhammaato baahiyaha laga soo jawaabay dhammaantood wax lagu tayeynaya adeega caafimaadka gobolka iyo cisbitaalka cidda ka faa'iidaysanaysaa maaha buuraha iyo dhirta iyo daaraha cidda loogu talagalay waxa weeye bulshada reer Sanaag weeye waxaan leeyahay adeegyadaa la keenay mishiinadani iskama oolayaan waxay u baahan yihiin dadkii loogu shaqayn lahaa dadka loogu shaqayn lahaa maanta taga meel kale iyagoo kharash ku bixiya socod dheer waqtina kaga lumo bulshada waxaan leeyahay ilaahay ma haddii weeye haddii adeegyadii aad ugu tegi jirteen meelaha kale gurigiinii laydinku keenaye war aamina oo ka faa'iidaysiga oo caloosha usii daaya laakiin haddii maalin walba adeeg ka jira cisbitaalka aad meel kale u tagtaan waxay nagu noqonaysaa in hoos u dhac ku yimaado gobolka guud ahaan iyo degmadaba horumarkuna wuxuu ka bilaabmaa bulshadu inay aaminto halkay degan tahay haddii lagu caban jiray adeega cisbitaalka u hooseeya waad arkaysaa maanta mishiinada casriga ah ee laga sheekeeyey cisbitaalka waxaan ugu nimi dhakhaatiir kooban oo GP ah maanta waxaa jooga dhakhaatiir kala duwan oo takhasusaad kala duwan bixiya daktarkii takhasusaadka sare ee dumarku idin joogaa wasaaraddaana kafaalo qaaday u shaqeeyaa dhakhtarkii qalliimada wuu idin joogaa wasaaraddaana gacanta ku haysa dhakhtarkii sawirada iyo mishiinada ku shaqaynayana wuu idin joogaa kuwii kalena way imanayaan laakiin waxaa laga niyad jabayaa haddii aad kuwan ka shaqaysiin weydaan kuwa kalena meel ay yimaadaan ama dee dadaal la gelin maayo marka waxaa laydinka baahan yihiin fariinteeda bulshadu ay tahay waar ka faa'iidaysta adeegyada caafimaadka waxaan xasuustaa dhowr 2 bilood 3 bilood ka hor bay ahayd dhakhaatiir baa gobolka yimid waxaa ka mid ah Dr. Okombe inuu ka hadlay baan u malaynayaa dabadeedna mayr bay tegeen iyagoo mayr jooga ayaa waxa dhacay ninba xabadi ku dhacday xabadii ku dhacday waa loo geeyay loo ninka kale eega way eegeen markay eegeen bay dhahdeen cisbitaalka Cerigabo la gaarsiin karaa geeya dabadeedna way soo direen ninkii cisbitaalkii yimid cisbitaalkii markii intaan la keenin ayaa gaari loo keenayo waa la saaro Hargeysa loo diray dhakhtarkii qalliinka uu joogay kii lafuhu uu joogay dhakhaatiirtii kale GP-yada kala duwanaana way joogaan markay yimaadeen Cerigabo way yiraahdeen waraysto ala ninkan soo dirnay mee dabadeedna waxay la yidhi ninkii waa la refer gareeyay wax loo diray Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Okombe uu soo garaacay isagoo canaanada maalinta dadka kale kuma jawaabin deewaan ogaa waxa meesha yaalo waxaan ku iri ma joogtaa Cerigabo haa wiigu doctor soo booqda ku iri dadna markaad soo booqataan igu soo celiyay cisbitaalkii uu tagay inamadu uu tagay uu sheegay markuu tagay wuxuu aniga galay uu sheegi maayo hay sheegi kuma sheegi ku iri wallahi aan la soo hadlin ninna uu sheegi uu galo meel buu soo eegay
wuxuu ogaaday mishiinada ugu casrisan ee qalliin lagu sameeyay yaalaan laba mishiin oo anesthesia wuxuu mid ka mid ah Hargeysa nooma yaalo isbitaalada private ka ma yaalo isaga sheegay dhakhaatiirta qalliinka way joogeen dabeetna markuu eegay intaanu ila soo hadlin shir jiraad qabtay duurkii waxa ku warhelay isagoo shir jiraad qabanaya bulshada ku canaanay maxay halkan joogi waayeen waarilaa inagu waxay haysanaa haddaynu ka qatanaano waa ceebe dadkiina way niyad jabayaane reer sanaago ka faa'iideysta caafimaadka gobolkiina oo aamina taas waa fariintayda maanta gobolka waxaan ku wareejinayaa gudoomiye baada caafimaadka waxaan ku wareejinayaa mishiin casri ah mishiinka loo yaqaano CT scanka reer ergaa maanta wareysanayo waxaan ku maxaad u baahantiin waxay weeyaan dawooyin iyo ambulance dabeedna waan u keenay maalintii labaad maxaad u baahantiin markaasay yidhaahdeen cold chainkii baa naga xunay noo dhisa dabeedna waa loo dhisay maalintii dambe safarkii ku warkaad maxaa bal warrama waxaas la inta cabashada ka soo baxaya markaasay yidhaahdeen waxaan doonaynaa in loo ballaariyo cisbitaalka VIP baan samaysanaa emergency-ga iyo neonatal iyo qalabkii neonatal noo keena markaasaan u keenay waan noqonay safarkii dambe markaas waa maxaa bal warrama maanta soo okay ma tiidi okay ma nihin ma wallahi waxaan dadka sawir ku saarnaa ma hayna egisreegi markaasaan u keenay dabeedna waanu ka tagnaa haddana ultrasound-kii markaasaan haddana ka tagnaa maalintii ugu dambeysay CT scan maanta waxaan oranayaa waxaan noo keena oran maysaan de maanta CT scan-kii waad iga haysaan insha Allah safarkayga dambe ee wasaaraddu iman doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu ballan qaadaynaa inaanu furno qaybtii keliya mishiinadii keliya waxaan imika diyaarinaynaa dadkii loo tababarayay keliya sifaynta waanu soo tababaraynaa tababarka bacdina mishiinada waa laydin keenaya insha Allah bismillahi kariim haddii kaasi idin imaado waanu kala raysanaynaa markaa aad mahadsantihiin shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay